السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد ملك ساجوكتين سو دوادا channel كيني حارون طعنتها عافماتك ولاشن شكري آدم بوله أصحاب قيمها بدن إدين عودنا لطات سو دوادا اندهايا عني نوش لك مهالله وحيالانو كلك ما تحاج على سي إنا كوسو دايو ولاشن فاضم برامبر iyo maxalla sida ogtiin horta channelkeena waa channel caafimaad iyo waxyaalo kale la dhimay waxa laga yaabaa dharka iyo waxaas laakiin maanta waxaan jeclahay gabadhan walaashii ah intii hooyo muslim in halkan ugu duceeyno maanta waxaan u jeeday anoo TikTok mars galay ayaan arkay Faadama Brambur walaashay gabadhan ma sha Allah waa gabar geesiyad ah hooyo aad u qurux badan oo yar hooyo karti leh gabar waxay wallahi ma sha Allah tabarakallah markii afka kala qaad aniga ilaahay in bay ku xasuusinaysaa dib in bay ku celinaysaa wax kastoo dhacayna waa ilaahay qadartiisa ay ku dhaceen marka waxaan rabnaa asxaabta qaaliga maanta Soomaalida dhan oo joogtay Sweden way soo banaan baxeen Faadama Brambur ayaa leed gareenaysay oo kaabooda heeda ugu horeysay ma sha Allah tabarakallah waligeedna way ka hadli jirtay xidhi jirtay war guriyaha ku dhimanina soo baxa ka hadla wax yar oo qodobo ayaa halka rabaa inaan ku darsado horta aniga hadaan Soomaalinahay isku naxariisano hadaa aragno qof muslim ah ama qof walaashin siba dumarka zaid aan isku nacabnahay aan isku jabinaa runta ilaahay isku sheegna waaye Faadama Brambur dad badan ku qoslaayeen oo ka dhigay amal inay hooyo xun tahay dad badan bay ku dhacday hadda oo hooyooyin bay ku dhacday oo Soomaali zaid aad ayaan u soo baratay xitaa Mareykankii wax kasta meelaha hadda normal ka noqotay baa wadamadaas ayaan anaga Afrika jooga alxamdulillah rabbil caalamiin soo marka waxaan dhihi lahaa hadda xitaa wax kale aw sameyn karin waxaan ugu dhihi lahaa ducada ku ilaawina gabadhan walaashin iyo intii hooyo muslim ah oo maanta kurbeesan oo carruur laga qaatay adduunka meel kasta dacaaladooda ay joogaan dadkan oo ka dhigayo gabadha walaashin because hooyo fiican ma yihiin ama inuu qadar waayo waxa ogaataa waxaan 100 sano inta adduunka la isin oo adiga lagu abuurin ay ku qorneed inaa martid imtixaamada qaarkood ilaa kugu talagalay waa imtixaan qof kasta oo imtixaan ka weyn hadaa aragtina waxa ogaataa darajadiisa ilaahay ayuu u dhow yahay uu ka koreeyaa runta la isku sheegaya nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam sida loo imtixaan loo imtixaanka loo kala koreeyo ama loo imtixaanka qofka ku socda marka aragtid uu kala adag yahay ayaa loo kala dhaweeyay oo imtixaan badnaa nabiyada iyo ambiyada iyo dadkii ku sixigay saasay tahay markasta soo aan waxaan ogahay qof kasta markuu imtixaankiisa adag yahay uu meel fog jiro inuu qofkaas ilaahay qof u dhow yahay uu ilaahay jecel yahay uu ka jecel yahay uu u doortay inuu qofkaas imtixaankaas maanta waa kan banaan bixi maanta la sameeyay waxay ka hadlaysay walaashay hadhow mar codkiisa deyn doona ka ugu dambeeyo in la soo baxo in ilmaheeda laga qaato in carruurtooda boqol jir ay soo carreen ay soo baxsadeen horta Yurub ilaahay baa jiro Mareykanka dhaamo oo xuquuqtaasha horta gaal waaye ku ilaahay ku sakhray way laakiin hooyooyinka wax yar oo tale ayaan la dhiiban lahaa waxaan ilaa hooyooyinka markay wadamada aadaan qurbaha ah marka ugu horeyso bal ilmaha iska kala yareen ilmaha inta iska xiraan ina adiga isbadbaadisid oo afka aad baratid waxa ugu horeeyo waxa weeye waa ina afka meesha joogtid luqadeeda ina baratid qofka markuu yaqaano luqada si fiican ugu hadlaysid waxay tahay qof dadka xitaa way ka cabsoonayaan way ka gaho dib educationka qofka markuu leeyahay wax barasho dadka kuma soo dhacdhacaan anoo arkay marka luqada hooyooyinka bartaan waxa dhihi lahaa hadana hab bartaan wadanka sharciga ka jira constitutional ah waxay iyagu qorteen barbaro si fiican ugu baro marka baratid intaas adaa laba haysatay hada laba haysata saddex aad oo hooyooyinka oo Soomaalida hooyo ka fiican ma jiro adduunka runta ilaa tan isku sheegno waa hooyooyinka resilientka oo yeelin carruurtooda inay bixiyaan carruurta dayicin wax kasta oo dhintaan hooyooyinka Soomaalida dhibaatooyin kasta maraan ilmahooda ayuu maraan runta hadii la isku sheego asxaabta qaaliga dadka kale walaa sidaas oo kale ma aha marka ilmaha ay ku yara dhibaatoodan oo iskooga carran ama meelaha xigeen offense-ka meelaha dadka ilmaha lagu koriyo geeyeen laakiin hooyada Soomaali intee nooshahay qabriga galaysa ma ahaane wala ma geyso cunugeeda saas waa la wada arkay soo marka aan waxaan dhihi lahaa asxaabta qaaliga ah hooyooyinka Soomaaliyeed waa hooyo adag waa hooyin ma sha Allah tabarakallah ilmo inta badan aabbayaasha waa absent ma joogaan runta dal isku sheega ama Afrika ha joogo ama Mareykan ha joogo waxa laga yaabaa boqolkii in 10 aaba fiican jiro hadii runta ilaahay laga hadlo waay siiba hadda wadanka hadda waqtiga xaadirka lagu jiro 2022 iyo sanadihii 20 sano qaxyi wixii dhaceen saas bay Soomaaliyeed nimankooda noqdeen runta aan isku sheegna waay way jiraan aabbayaal fiican abayaal fiican way jiraan laakiin ma badna waa laga badan yahay runta ilaahay hadii la sheego meel kasta hooyo kacayso oo ku fayso oo jees waxaan in aragtin adduunka wax soo saaro engineer Soomaalidan hooyon ba soo korisay runta ilaahay laga baqo soo yaala daleecin hooyooyinka imtixaanka qabsaday oo ilaahay ku talagalay imtixaamada weyn inay maraan dumaro waxaan dhihi lahaa isgacan qabta oo beenin ceeb ma waxaan imtixaan weey ilaahay ayaa ugu talagalay gabdhaha muslimiinta sida hooyooyinka sida Faadama Brambur iyo hooyooyinka inay maraan
asxaabta qaaliga dumar oo aan iskacan qabano yaa isku qoslin haddaa maanta arag gabar oo alaasha ah oo dhibaataysan oo kaa hooseyso caloosha xiro waxa ku dari karti ku dar haddii kale hin caydaada iyo dhaqdhaqadaada meel kala fadhiiso u duceey ilaahigaaga ka baqo waxaan waa imtixaan dadka ku qoslaa nebiga wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam imtixaan haddaa qof ugu qosashid oo ku jeestid ina adduunkan intaa ka tagin laazim waa lagu marsiinaya ogaada qofka ogaada asxaabaysiiba dumarka u badan dadka isku qoslaan ama iskuga dhigaan caay wax caay iheen oo qofkaas ilaah u keenay ilaahay ugu talagalay inuu maro imtixaan uu ku jiro ilaahay ka baqano gabdhaha Soomaalida ilaahan ka baqano dumarka Soomaalida ilaahan ka baqano dib ilaahay ugu laabano aan isku duceeyno askarab qabano dad aad iyo aad waxaan u xoog badan hadda isku imaano laakiin I don't know wax naga dhaxeeyo waa shaqo dheer marka laga hadli doono wax dhaxdooda loo kala googooyay isku nacib yihiin waa wax dheer oo haddaan fiidiyoga ugu talagalin waxa dhihi la faado buraanbur hooyo ma sha Allah tabarakallah iyo hooyooyin kale oo dhan ilmaha fiican hooyooyin waalidka fiican bacar laga qaataa runta dil isku sheego ilmaha waalidka ilmahooda oo dayaca wax rabo ma laha laakiin ilmaha la ficil yahay oo lagu dhigan yahay waxaan gaalow u yihiin waxay ka wadaan janda waxyaalo kale ay ka wataan marka dib loo raaco marka waxa dhihi lahaa faado buraanbur iyo gabdhaha hooyooyinka dhan waxa dhihi lahaa ilaahigiina isku xira waa guuleysan doontiin guul iyo barwaaqo inay soo dab ilmihiina way nii soo laamadana hayeeniyad jamina waxa ogaadaa meeshan joogno waa daarul imtixaan والدنيا ودلويس وماشي وهوسيس oo ilaa agtiisa wax weyn kama aha waa meel la isku xitaamo meel happiness iyo farxad iyo wax kasta adduunka lagu helo ma aha caloosha xiro insha Allah ilaahay ducadan ku soo duceynayna anagana haloo soo duceey walaashan ciidi caruurteeda dhan intii gabar oo muslina ilmo ka maqanyin ilmahooda ilaahay meesho inuu xafido iyago nabad qabaan oo ma sha Allah ilaahay inuu soo celiyo asxaabta aamin aan dhahno aan u ducooda intaas le inta wax ka maqan tahay waa intaan u duceynaysa ilaahay uu malaa'igtan aamin ka dhahayso because lismooga meesha soo jiro meesha lagu soo jiro adiga xitaa waxa noo loo wada sameeyay ilaa hortiisa soo asxaabta qaaliga waxaan dhahayaa aan duceyno gabdhaha walaalayaashan meel kasta joogan dadka jaban aan isku gargaarno asxaabay Soomaaliyeed qosolka waxaana sameynaysin iska daaya ama dadka ku dilacsanaysin qof kasta xumaraayo oo qof ilaahay wuxuu ugu talagaray maraba inaan nagu dheereeyo fiidiyoga waynii soo gelina fiidiyo kala dhageysanay dhahayaa sa u maqashin cunug ma arkin inay dhinteen iyo inay nool yihiin ma ka warhayo حابة انت كلمة مقلي كرتين فيديوغا because وحالة دحايا ما support gareenaya dhahayaa wala diidan yahay in TikTok aan kala soo baxay soo marka gabadha ilmaheedii ka shaqeynaysa waana la wada socotiin sheekada runta aan isku sheegno YouTube-keeda wax kasta gabadha Faadma Buraanbur ilmaheeda in iyadoo xitaa ilmo ay dhashay oo laga qaatay kulli sheekada waan la soconaa intii be maanta way soo murada haraadeen hooyooyinka dhan isku soo baxin dad xitaa hadii Arab oo ajnabiya laga qaataa ku jiro wala isku wada imaaday dadkii muslimiinta inay tusaan at least waxay dareemayaan waa wax weyn waay ma sha Allah tabarakallah ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyo kasta oo calooshada bugto oo oynaysa oo hoos u oynaysa ilaahay ha u dhayaan dhahaya ilmeedan ilaahay waxa fido ilmahooda dhan meel kasta adduunka jiraan si iyago fiican oo wanaagsan oo ilmahoodii ma sha Allah ilaahay u soo celiyo insha Allah asxaabta halkaas ay niga sii guud baxaya maraba inaan waqtiga inagu dheereeyo oo video dheer u noqdo waligay kama hadin laakiin aan soo qaatay waxaan dhahayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh